naxariista garaadka iyo deeqsinimada waa wax uu alle aadmigu ku beero. musharax xildhibaan Raage Maxamed Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Buur-Saalax ee gobolka Mudug waxayna dhowr neef oo ari ah iyo raashin isugu jira bur, bariis, sonkor iyo timir ku wareejiyeen guddiga ku howlan qodista ceel laga qodayo magaalada Buur-Saalax si ay ugu noqoto dhiirigelin maadaama ay hayaan shaqo muhiim ah. ugu horeyntii qaar ka mid ah howlwadeennada ceelka Buur-Saalax ayaa xildhibaan Raage kaga mahad celiyay sida uu isu soo xilqaamay waxayna alle ugu baryeen in uu u rumeeyo himilooyinkiisa musharaxa maadaama uu yahay shakhsi aragti fog. musharaxa waxaan leenahay wuxuu keenay xoolo nool oo hilibkiya, bariis, sokor, timirti, bur. waxaan rabnaa cid kasta oo xilqabto inay sidaas oo kale ay wax u qabato. xildhibaanka waa naqanaa waa nin siciima oo wanaagsan oo waxtar leh. haddee waxa weeye furaad kuma jiraa layidhi isagiyo waxa weeye aan weli hawshi gaarin buu meel kasta wax uga qabanayaa. nogaalgeyn buu tegey tanuu wax ka qabanayaa. hadhowna waxa weeye waa sidaas iyo ka sii fiican iyo ka sii badan baan ka filaynaa. xilkana allaha ku guuleeyaan leenahay. maantay martigelin baa waxa isku xilqaamay Raage Maxamed Maxamuud oo yiri war wiilashiina aan booqanno hadii meel mataqaana rag tagayana waxay u baahan tahay nacf in la geeyo sidoo u sheegay. timir baa la keenay, sonkor baa la keenay, bariis baa la keenay, bur buu keenay, ariga hilibka ah buu kharashkaas anagu lama wadaagno asaga ayaa raganimadiisa iyo dadnimadiisa ku keenay. cid kasto hadda ma aragtay wax garanaysana sidaas laga rabaa. aad u mahadsan yahay walaalka iyo walaalaha dhammaan soo booqday oo halka noogu yimid. hawshu way socotaa. xoogii ay noo keeneen waan ka gudoonay insha Allah hawshu way sii socon doontaa. wixii intaas ka dambeeyay insha Allah waynu wada socon doonaa. musharax xildhibaanka iyo waftiga hogaaminaya waa soo dhaweynaynaa. soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada. hantidii iyo xoolihii iyo hadiyadii ay noo keeneen waa ka gudoonay. waana ku mahadsan yahay xildhibaanka iyo waftigiisuba. sidaas iyo si ka si fiican baanu ka rajaynaynaa qof walba oo maaragtay na soo booqda. waa dhiirigelin weeye waxa weeyaan waa himad dhis weeye. xildhibaanka musharaxana waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kugu guuleeyo hankaaga iyo himiladaada leedahay Allah kugu rumeeyo. Ilaahayna midkii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa baan faca Allah ka dhigo oo uu soo qaban qaabiyay oo keenay xildhibaan Raage Maxamed Maxamuud Xaaji. khayr Allah siiyo. جزاكم الله خيرا جزاء بانو لeenahay. nin walbana sidaas laga rabaa. nacfigaas raashin leh oo maxaan ku yiraahdaa ari leh waxa weeye walaalkeen ayaa soo gaarsiiyay oo keenay. qof kastana sidaas laga rabaa. ugu dambeyntii murashax xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Raage Maxamed Maxamuud ayaa u mahad celiyay guddiga ku howlan ceelkan maadaama uu heer gabagaba marayo. waxa uu musharaxa fariin u diray shacabka Soomaaliyeed. waxaan bogaadinayaa walaalaha meeshan maanta taanu joogno oo ah ceelkii Buur-Saalax qorshihiisa lahaa waqtigoodii iyo juhdigoodii iyo xoolahoodiiba ku bixiyay. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. waxaan leeyahay hawshii aad u qunteen meel fiican bay maraysaa. hadda ceelku wuxuu ku dhow yahay 130 mitir. biyihii in la gaaro dhawaan la filayaa haddii alla idmo. ilaahay idinkii waxaan rajaynayaa ilaahay inuu sawaabteeda ajirkeeda idin siin doono. waxaan sidoo kale boorinayaa qof kasta oo inaga naga midhi inuu dhiiro geliyo oo u niyad dhiso oo u yimaado oo wuxuu kari karo iyo baahida meesha ka jirta uu ka qayb qaato oo uu keeno. qof kasto anaga waxaan ku boorinayaa ku dhiiro gelinayaa hawshaasi qaybta uu ku leeyahay inuu ka qaato haddii alla idmo. loo dhabar adaygo guushu waa dhowdahay. waxaan halkan aan u soo booqday oo imid inaan walaalaha jooga dhiiro geliyo dareensiiyo inaanu u maqannahay la joogno kana warhayn doona haddii alla idmo. wixii aan halka karaanku ahaa baan soo gaarsiiyay oo ari aan ugu talagalnay hilib inay dhalinyarada joogta ay u isticmaalaan hilib ahaan iyo raashinkii oo ah bariis iyo bur iyo sonkor iyo timir ba isugu jira. intaasna insha Allah waa bilow waa wadayna haddii alla idmo ilaa inta hawshaas ay ka dhamaanayso haddii alla idmo. Mukhtaar Cabdi Aadan, Ariel TV, magaalada Muqdisho.